no gabdhaha ku jooga fiir marka dad wax u sheegisna waa inaad naftada xataa ka soo qaadaa moogtahay gabdhaha ku jooga waxa ay sheegtay in quraanka dadka gabdhaha xifdisan yihiin oo tartamada quraanka wadanka laga galay inay kaalmo hore galaan way gabdhaha quraanka u bartay ku kaltana u leedahay jus ama ku filan what kind of dhaqan is that and let's be fair man we can't be fair. Why? No. So gabdhaha waxa leedahay quraanka dhameeyo 30 jus hal xifdiyo iskuulana inay gisaa laga yaabaa jaamacada ay dhigtaan gabdhaha ka tan waxa la ilaa jus ama idin ku filan iyo dahaarada in la iska dhaqo waxaan jeclaan lahaa I always prefer family in laga saaro kaaga la shaada ka hadalkayga waxaan uga hadlay xitaa firi ma ahan dooda iyo focuska waa general it's not specific so let's not narrow inaan hoos iska soo gelino oo aynu ku soo koobno aniga iyo adiga dooda way ka balaaranta marka waxaan jeclaan lahaa yes they are hafid alhamdulillah quraanka xifdisan yes so let's lakin NFB adina jus ama bartaan Soomaa can we leave there yeah can we leave there no we can because waxa rabtaa ina gabdhaha Soomaaliyeed oo dhan tiraahday jus ama idin ku filan kuwaagan inay quraanka xifdiyaan baa rabtaa that's not fair I wish inaan inta ka sii socon karnaa jeclaan lahaa si waqtiga u beeqaamino jawaabteeda waa haysaa dabcan hawlkan aan uga gudubno way jus ama aad u leedahay laakiin gabdhaha in high school iyo jus ama qofka quraanka xifdin kara ilaahay maskaxdeeda siiyay waqtina u hayay maxaa u diidaysaa ilaa quraanka 10 sano ka hor baa lagu xifdin karaa ma oran aniga lama bari karo waxaan ku yiri waxa u fiican qofka inuu yaqaano wixii basic ah